بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ودرسيني امتحانها تلو تلمان تصالة يتوسين وأنا قيبتي لبعتناد قيبتي تنكوريس وحنا كجهل يدور شوين كدلك إنجليز ككل عدونا خميس سو صعطة iyo doorashooyinka dalkeena loo diyaarka yahay iyo arrimaha khuseeya mujtamaca guud ahaan iyo dimuqraadiyadda halkii baan rabaa inaan ka sii wado oo halkii aan isku taagay ma ahayn dhammaad waxyaabahan taabtay waxaa ka mid ah in dadka wixii isku maslaxada ay noqoto in maslaxadooda wada raadsadaan sida qabiilka looga baxayaan ay tahay haddaba ma umadeenu diyaartaa maaha oo mana aha isbedelku wax maalin kaliya iyo habeen kaliya lagu sameynayo waa hubaal weeye inay markaynu muddo joogno haddii alla yidhaahdo aqoonteenu korodhe ee dadku saaxiibul maslaxad noqda ee ay gartaan waxa ay xukuumadda ka doonayaan in intii isku maslaxaadayba ay samaysan doonto maxaan ku idhaahdaa ururo shaqaale iyo ururo mihnadeed oo u hawlgala maslaxadooda kuwaasi oo noqon doona kuwa bedeli doona qabyaaladda mid baase aan qabiilkayna waa inaan rasaynu imaka u deganahay inaan kaga baxaynin kaas oo deegaankeeni baa qabiilaysan dimuqraadiyaddana waa deegaan marka labadii kolleyba waa inay iswaafaqaan oo haddaan maanta u hadlayo maxaan idhaahdaa aan leeyahay waxaan ka hadlayaa bulaxaar ama waxaan ka hadlayaa beligubadle ama waxaan ka hadlayaa dhagax dheer ama waxaan ka hadlayaa maxaan ku idhaahdaa laan mulaaxo intaba waa la garanayaa inaan ciddan u jeedaa reer bay noqonaysaa waxayna waa deegaan marka cala alaqal in la asturo oo halkii la odhan lahaa reer hebel deegaan ahaan lagu tilmaamayo ay ku fiican tahay waanaynu ugu qasabo dee dimuqraadiyadii weya waxaa deegaanaysan weeyi haddaba waxa weeye dadka maxay tahay waxyaabaha maanta innaga ina midaynayo mid waanu soo noqonaya waxa weeye dal aan la aqoonsan oo bilow ah oo curduna waxyaabaha guud oo dadkina aynay garanayn waxyaabaha hoose ay dowladda ka doonayaan marka wax guud oo inuu kulmiyo lagu heshiin kara baa jira waxaa ka mid ah siyaasadda guud ee arrimaha dibadda difaaca qaranka in dadku cadaalad helaan in muwaadiniintu sinaato qodobada noocaas ee commonka ah qof waliba u baahan yahay dee reer waliba waa u baahan yahay marka inaynu taasaa malaa moodaa inay dadka ayaamahan markaanu lahayn dowladdu waxba kama doonayaan waxay ka doonayaan waxa weye wixii aasaaska ahaa waa nabadgelyo iyo cadaalad iyo magaranaysaa waxyaabaha dee waxbarasho hoose iyo xisaabaha noocaasa ayay ummaddu ka rabtaa oo ay garanayaan taasina waa tu guud oo tii khaaska ahayd ee mihnadaha ahayd ee weli maynaan gaadhin umana bislin marka waa fiican tahay haddii reeruhu ay saa wax u doonayaan oo ay ku qanacsan yihiin in muwaadiniinta somalilan la helo cadaalad in lala dagaalamo musuq maasuq in dadku helo nabadgeliyo in lala dagaalamo shaqo la-aanta iyo tahriibta arrimo noocaasoo dhammaanteen waynu isaga iman karaa reeruna kuma kala duwana mid baa jirta oo waxa weeye dadka waxay ka baqayaan cadaalad darro waxyaabaha qabyaaladan xoojinaya waxa weeye kalsoonidii baa dadka ka dhimatay oo burburkii dowladdii hore iyo dhibaatadii lasoo maray iyo isqabqabsi badan oo xaggii jibhada ahaa wixii waxay dhaliyeen kalsooni la-aan qofku aanu ku kalsooneyn cid kale marka waxa weeye oo kale ay ka dhigan tahay haddii cid ay dhacayso in adeerka hay dhaco iyo magacdoon yani waxa kaliya igu filan aniga reerkiinu wasiir buu leeyahay ayaa igu filan waxyaaba noocaas oo dee laakiin laga bixi doono ayaa maanta horta muuqda waana tan keenaysa inay dowladdu ballaadhato oo madaxweynaha iyo ciduba lagu qasba inuu cid badan magacaabo oo dowladdii koobneyd waxyaabaha ay u socon weyday waxa weeye reerihii oo mid waliba uu leeyahay waa inaan cid ku yeeshaa golihii waana un kalsooni darro aan la isku kalsooneyn iyo system adagoo burburahoo lasoo maray
oo qofku uu jecel yahay qofka meesha jooga qof uu garanayo oo dee بالمفتاح uu rogo oo maaragtay albaabun ka furi karo oo guriga ugu tegi karo xisaabo noocaas wax ayaa muuqata in dadkii ay rabaan in reer waliba maganaysaa nin reerkooda meesha soo dhigo haddaba aan reerihii kusoo noqon reerihii haddaan sidaa looga tegi bixi karaynin muddooyinka soo socday dhow استراتيجية kala yeelanayna ay tahay inaynu ka baxno xisbiyada iyo arrimahaas aynu u samaysanay bal intaan la gaadhin horta short termka aynu wax qabano waxaanu qabanaa reerka gudihiisa aan ka samayno dimuqraadiyad reerku cidda soo diranayo maasan xildhibaanada baarlamaanka kolle qabiil baa lagu dooranayaa laakiin qabiilku ha furaado oo reerku intuu isu yimaado ha yidhaahdo wariyaa doonaya ciddii tartanka gelaysay intuu guddi u saaro siifiyadooda eego ha kala saaro oo ha u eego si cadaalada oo dad maraya oo karti leh oo aqoon leh reerkaa soo dirto laakiin marka hore horta reerka gudihiisa habka dimuqraadiga ha ku dhaqmo oo intuu isugu yeero raggii wax doonayay oo guddi ay u saaraan oo eegaan siifiyadoodaasi ha soo xulaan rag xula kuwaas ayna dhaqaaya oo maaragtay runtii iyagoo ku yimi nidaam qabiila ayaa dee ninka weliba aqoontiisa iyo kartidiisa iyo sharaftiisa ninka lagu soo xulaa dadka kalena way ugu dhantahay oo way matalayaan marka si aanu bal golo u yeelano horta golahan sharci dejinta ayaa aad iyo aad muhiim u ah inaynu helo rag xula oo reeruhu soo xulaan oo qabiil kasta lagu soo doortay rag mudakara oo mas'uul oo mas'uuliyadda qaadi kara aynu u baahanahay rag ina dhaqaajin karo sharci dejin wanaagsan inoo samayn kara rag xukuumadda kasta oo timaada la xisaabtami kara rag la dagaalami kara musuqmaasuq rag garan kara mas'uuliyaddu dareenka ay leedahay iimaan leh oo ilaahay ka baqaya oo cadaalad ku suntan oo musuqmaasuq aan ku soo bixin reeruhu waa yaqaanaan reer waliba ciddiisa wanaagsan iyo cidda xun xaggaa balan ka gallo oo reeruhu dib ha isugu noqdaan oo ha noqdaan dad xula waa balorta marka hore reerow halkaad ka hadlayso dimuqraadiyad intaanad Somaliland u raadin gudihiina dimuqraadiyad yeesha oo fura albaabka oo rag ku kala saara karti iyo aqoon inay waragooda ilmaadeera oo reerkii ku wada abtirsanaya markaasi halkaasi aynu bulka gallo ilaa inta aynu ka gudbayno ee aynu gaari doono heer dadka inta isku maslaxadiiba ay noqoto in dantooda wada ilaashata oo dantooda wada raadsata aynu horta bar tallaabadaasi aynu u sii maro oo aynu noqono dad aan group yar oo reerka magaciisa sheeganaya uuna ay madaxa kaga taagnaanin oo in iyagu wax u magacaabin aynu noqono dad isaas oo soo xula cidda ay rabaan magaca reerka ku soo xula oo dad wanaagsan halka isugu yimaadaan golaha oo halkaasi isbedelka rasmiga uu ka dhasho golo rag xuleynta yimaadaan ay ragaasi mas'uuliyadooda gutaan waxaynu ognahay runtii 10 sanadood ee golaha wakiiladu jiray waxba ka sheegi maayo nin waliba waa ka dheregsan yahay laakiin waxaynu ku jira dhaliil badan baa saaran wax badan oo ay qaban lahaayeen baan la qaban waxa loo qaban waayna waxa weeye kartidooda iyo ragga ay yihiin ayaana ugu qabaa inay tahay intaas wax dhaafsiisan ka sheegi maayo laakiin waxaanu u baahanahay waxaas waa wixii tagay mustaqbalkeena ka fakiro bal cidda aynu ku bedelayno inaynu ka fiirsano oo aan u soo xulo si wanaagsan oo reeraysanba reerku ay soo xulaan raggooda inta ugu mudan haddii halka isugu wada yimaadaan wanaag baa ka dhalanaya isbedelkan ayaga aynu horseedi doona waxaan idinkula talinayaa xisbiyada ha ahaato ama ha ahaato salaadiinta iyo cuqaasha waa rag soo xula rag reerka wax tari kara reerka wax tarkiisu waa ninka danta guud wax ku qaban kara waa ninka musuqmaasuqa la dagaalami kara waa ninka xukuumadda la xisaabin kara waa ninka maxaan ku raacdaa cadaalad bulshada u horseedi kara waa in dadka dhalinyarada ay faraha badan leh shaqada leh shaqo u raadin kara waa nin ictiraafka degdeg iyo hawl adag ka geli kara ninkaasi reer waliba ha soo xulo والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.